kusoo dhawaada muuqaal ku saabsan dalka Venezuela dalka madaxweynahooda la afduubtay bilowga sanada 2026 maanta waxaan idin soo bandhigayaa dal ku yaala waqooyiga koonfurta Ameerika dal leh kheyraad dabiici ah oo aad u badan gaar ahaan saliidda balse muddo dheer wajahaya qalalaase siyaasadeed dhaqaale iyo mid bulsho dalkaas waa Venezuela waxay ku taallaa koonfurta qaaradda Ameerika waxayna xuduud la leedahay dalalka Colombia Brazil Guyana iyo badda Caribbean-ka dalkan waxa uu leeyahay xeeb dheer jasiirado qurux badan sida Margarita Island iyo dhul aad u kala duwan galbeedka waxa uga yaala buuraha Andes koonfurtana kaymaha Amazon halka bartamaha ay ku yaalaan banaanada ballaaran ee loo yaqaan Llanos kala duwanaanshiyaha juqraafiyadeed ayaa ka dhigay Venezuela dal leh kheyraad dabiici ah oo aad qani u ah cimilada Venezuela guud ahaan waa mid kulul oo qoyaan yar leh balse meelaha buuraleyda ah waxa ay leeyihiin cimilo dhexdhexaad ah dalkan waxa ku nool in ka badan 30 milyan oo qof luqadda rasmiga ah ee looga hadlo waa Spanish sidoo kale waxa jira qowmiyado asal ah oo ku hadla luqado gaar ah lehna dhaqan u gaar ah Venezuela waxay ahayd dalkii ugu horeeyay ee Latin America ka xorowday dalka Spain sanadkii 1811 ayay ku dhawaaqday xorriyad iyadoo halgankaas oo hormuud ka ahaa halyeeyga caanka ah ee Simón Bolívar kadib xorriyadii Venezuela waxay si rasmi ah u noqotay dal madax bannaan sanadii 1830 qarnigii 19aad iyo 20aad Venezuela waxa hareeyay afgambiyo military maamulo kala talisa si kastaba sanadkii 1958 dalkan waxa uu galay marxalad isdoorasho ah xagga siyaasadda oo muddo socotay taasoo keentay xasilooni siyaasadeed iyo horumar dhaqaale gaar ahaan marka la helay saliid tiro badan Venezuela waa dalka leh kaydka saliidda ee ugu badan dunida saliiddu waxay noqotay laf-dhabarta dhaqaalaha iyadoo in ka badan 90% dhoofinta uu dalkaas ku tiirsan yahay dakhliga saliidda ayaa dalka ka dhigay mid kamid ah kuwa ugu qanisan Latin America qarnigii 20aad sanadkii 1999 Hugo Chavez ayaa xukunka qabtay isagoo hirgeliyay nidaam hanti wadaag oo loo yaqaan Chavismo inkastoo uu taageero ka helay dadka saboolka ah haddana siyaasadiisa ayaa saldhig u noqotay khilaafaad siyaasadeed iyo dhibaatooyin dhaqaale oo soo ifbaxay taasoo halis ku ahayd mustaqbalka dalkaas si kastaba tan iyo sanadii 2013 dhaqaalaha Venezuela si xun ayuu u burburay wax soo saarkii saliidda ayaa hoos u dhacay sicir barar ba'an ayaa dhacay lacagtii wadankuna qiimaha ay beeshay malaayiin qof ayaa galay saboolnimo halka qaar badan ay dalka ka qaxeen kadib geeridii madaxweynihii hore ee dalka Venezuela Hugo Chavez Nicolas Maduro ayaa noqday madaxweynaha sanadkii 2013 xukunkiisu waxa hareeyay muran mucaarad xoogan eedeymo musuqmaasuq ku tumasho xuquuqda aadanaha iyo cunaqabateyn caalami ah oo saameyn weyn ku yeelatay dalka dadka reer Venezuela waxay wajahayaan nolol adag cunto yari dawo la'aan shaqo la'aan iyo koronto go'da had iyo jeer dhibaatadan ayaa dhalisay in ka badan 7 milyan oo qof inay u haajiraan dalal kale taasoo noqotay mid kamid ah qaxootiga ugu weyn dunida bilowga sanadka 2026 waxaa warbaahinta dunida qabsaday wararka in madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro la qabtay kadib howlgal caalami ah oo hogaaminayay Mareykanka waxaana lagu eedeeyay dambiyo culus oo ay kamid yihiin ka ganacsiga daroogada iyo xiriir lahaanshiyaha kooxaha hubeysan qabashadiisa waxa ay dhalisay falcelin caalami ah qaar kamid ah dalalka caalamka ayaa muujiyay inaysan qayb ka ahayn falkan talaabadaasina ay tahay mid laga xumaado iyagoo ixtiraamaya sharciga caalamiga sida dalka Ingiriiska oo iska baryeelay mustaqbalka dalka Venezuela ayaa galay xaalad hubanti la'aan Venezuela waa tusaalaha muujinaya sida dal leh kheyraad aad u badan ugu dhici karo dhibaatooyin waaweyn marka ay isbiirsadaan siyaasad xumo musuqmaasuq iyo maamul la'aan mustaqbalka dalkaas waxa uu ku xiran yahay sida ay u maareeyaan marxaladan taariikhiga ah dadka reer Venezuela